korintoska koowaad cutubka 12 walaalayaalow dooni maayo inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan hadiyadaha ruuxa ka yimaada waad og tihiin in markaad dad aan ilaah aaminin ahaan jirteen laydin geyn jiray sanamyada aan hadli karin si laydinku geyn jirayba sidaas daraaddeed waxaan idin ogeysiinayaa inaan nin ruuxa ilaah ku hadlaa odhanaynin ciise waa inkaaran yahay oo aan ninna odhan karin ciise waa rabbi inuu ruuxa quduuska ku hadla mooyaane waxaa jira hadiyado kala cayncayna laakiin waa isku ruux waxaana jira adeegid kala cayna waana isku rabbi waxaana jira shuqullo kala cayn ah laakiin waa isku ilaah kan dhammaan wax walba kaga dhex shaqeeya laakiin mid kasta waxaa muujinta ruuxa loo siiyaa waxtar mid waxaa laga siiyaa xagga ruuxa hadal xigmada mid kalena hadal aqoona siduu isku ruuxu doonayo mid kale ruuxu rumaysad buu siiyaa mid kalena hadiyado wax lagu bogsiiyo ayuu isku ruuxu siiyaa mid kalena shuqullo cajaa'ib leh mid kalena wax sii sheegidda mid kalena kala soocidda ruuxyada mid kalena afaf kala cayna mid kalena afaf fasiraaddooda isku ruuxa oo keliya ayaa ka shaqeeya waxyaalahaas oo dhan isagoo siduu doonayo mid wax ugu qaybinaya haddaba sida jidhku mid keliya u yahay oo uu xubno badan u leeyahay oo xubnaha oo dhan ee jidhka ay jidh keliya u yihiin in kastoo ay badan yihiin masiixuna waa sidaas oo kale waayo ruux qudha ayaa dhammaanteen jidh qudha inagu baabtiisay haddaynu nahay yuhuud ama garieg ama addoommo ama kuwo xora oo waxaa laynaga waraabiyey ruux qudha waayo jidhku xubin qudha ma aha ee waa xubno badan hadday cagtu tidhaahdo anigu gacan ma ihi taas aawadeed jidhka ka mid ma ihi taasu sababu noqon mayso inaanay jidhka ka mid ahayn hadday dhegtu tidhaahdo anigu isha ma ihi taas aawadeed jidhka ka mid ma ihi taasu sabab u noqon mayso inaanay jidhka ka mid ahayn haddii jidhka oo dhammu il wada ahaan lahaa meeye dhegihii wax lagu maqli lahaa hadduu dhammaan dhego wada ahaan lahaa meesankii wax lagu urin lahaana haatanse ilaah baa siduu doonayey xubnaha middood kastaba jidhka ugu hagaajiyey hadday dhammaan ahaan lahaayeen xubin qudha mee jidhkii haatanse waa xubno badan laakiin waa jidh qudha ishu gacanta kuma odhan karto kuma baani madaxuna cagaha kuma odhan karo idinma baani xataa xubnaha jidhka oo loo maleeyo inay taal yar yihiin iyaga qudhooda waa loo baahan yahay oo kuwa jidhka ee aynu u malayno inay u maamuus yar yihiin kuwaas ayaynu ka sii maamuusnaa kuwa kale oo xubnaheenna cawrada baa ka xurmo badan kuwa kale xubnaheenna aan cawrada haynse waxba uma baana laakiin ilaah baa jidhka isku hagaajiyey isagoo tan ugu daran maamuus badan siinaya inaan jidhku qaybsanaan laakiin in xubinilaa xubinta kale u welwelsho haddii xubin qudha xanuunsato xubnaha oo dhamm way la xanuunsadaan haddii xubin la maamuuso xubnaha oo dhammu way la farxaan idinku waxaa tihiin jidhka masiix iyo xubno ka mida ilaa markii hore kiniisadda qaar wuxuu uga dhigay rasuullo markii labaadna qaar kale nebiyo markii saddexaadna qaar kale macallimiin dabadeedna qaar cajaa'ibyo sameeya qaarna kuwo leh hadiyado wax lagu bogsiiyo qaarna kaalmeeyayaal qaarna taliyayaal iyo qaar afaf kala cayncayna ku hadla dhammaan ma wada rasuullaba dhammaan ma wada nebiyaba dhammaan ma wada macallimiinba dhammaan ma wada cajaa'ibyo sameeyayaalba dhammaan ma wada leeyihiin hadiyado wax lagu bogsiiyo dhammaan ma ku hadlaan afaf kala cayna dhammaan wax ma fasiraan laakiin aadu doona hadiyadaha u waaweyn oo weliba waxaan idin tusayaa jid kan ka sii wanaagsan